aad fakisay booskiisa galay xabsiga albaabka laga furay labada dhinac hore gadaal laba marsin darbiga laga bootisay waana la iska sii saxday jeega loo saxday mushaarka muxuu ku qaataaba furaas ila hay maxaabiistaas ilaali laba kol bardi dhexdooda meel ooda alaga baxshay waxaan shaqada waxba ka qaldan aan kan taliya wada tagno taliyo imaad toona uga leeyahay taliye furihiisii waa dayacday furihii hore in la koobiyeysteen aniga ma ogin meeshaana maxbuusa ku xiran qoful cusub ee waaka laba alif labool Ilyas Cabdullaahi Cabdi Mansuur oo furahaye ka ahaa xabsiga saldhigga booliiska Janaale ayaa loo haystaa in uu xabsiga ka fakiyay Ismaaciil Cabdiraxmaan Mahad oo loo xukumay dil uu ka geystay deegaankaasi waxaana Mansuur eedan ku heliya alif labool Cabdulqaadir Muxiidiin Xaaji oo habeenka uu falku dhacayo la joogay Mansuur maalmo ka hor falkaana la arkay isagoo haya furaha xabsiga shaqadiisana ma ahayn arrimaha maxaabiista kaliya askarta ilaalada saldhigga ayuu ka mid ahaa maxbuus kala fakiyay oo ay soo qabteen dadka deegaanka Janaale kadib markii uu dilay macallin dugsi Qur'aan ayaa xabsiga laga fakiyay habeen saq dhexe ah iyadoo laga bootiyay darbiga xabsiga kadib markii laga furay qufulkii ku xirnaa qolka uu ku jiray maxbuuska furahayii xabsiga eedeysana Mansuur oo habeenkaasi shaqada saarnaa ayaa dhowr jeer oo hore lagu canaantay inuu dayacay furaha xabsiga iyo ka gaabinta waajibaadkii uu ku qornaa taasina waxaa xigtay in uu fakiyay maxbuuskan halista ahaa waxana uu falkan dhacay habeen ku taariikhaysan 3 bishii 2026 sarkaalkii xukumayay eedeysanayaashan oo dhowr jeer eedeysanaha koowaad ee Mansuur ku canaantay dayacaad furaha xabsiga iyo askar kale oo saldhigga ka howlgasha ayaa maxkamadda warbixin ka siiyay sida ay wax u dhaceen taati ka ahay inuu dayacad oo sameeyay furihii oo haay maxaabiistiga aan ku igliyaasha xirnaa oo lumiyay furihii oo dhunsun taliyaha soo qaaday taligaaw abandulaha ururka Mansuur waa istaagay furihii oo aaday qolkii ma ugu soo tagay ma agaan furihii oo aaday waa soo waayay adiga furihii inta soo laabtay oo meeshii imaaday taliya waxa uu yiri furihii waa iga dhumay adiga ma qof kale ma haaye furihii isi mardan ma dhuminaayo askartii meeshii joogday isigii macluuniga aniga meeshii joogay adiga askar badan meeshii ku fadhinay waxaan dhahnay taliya waa ku baryaynaa furihii adiga daa haysid ninkan si waa ku baryaynaa mardan dayacadaas ma sameynaayo furihii adiga siya lagu siiyay furihii askariya loo diray qolku jiray askariya keenay waa loo dhiibay hali furaha mar dambe meelaha ugu tagay haddana ord maxaabiista raashinkiisii intaasaa ogaanay meesha imaanay albaabku ugu horeeyay maxaabiista oo ninka fakana kamid ah ana sarba oo furan oo balqan oo furiis ku taagan qofulkiisna ku taagnaa oo furan maxaabiista mid fakanayo albaabkiisa oo furnaa tirada markaas aan ninka ima dhameystirin hadaa aragna ninka inuu maqan yahay waxaan shaqada waxba ka qaldan aan kan taliya wada tagno tabaadka gudbin sidaan soo wada naqan masquula ka soo baxay qolkii oo balqana arkay furii maxaabiista gacan ku dhiilaha oo meesha yaala arkay waa soo qaaday qolkii yagi taliya hurinka u imaaday oo afar askari la joogto waxa dhaa furii maxaabiista gacan ku dhiilayaasha qol ilaa loo tagay anaa soo qaaday qolkii geeyay askariya talaabo qaadada waa dhimaato dhaataydo ku wacay taleefkiis woo dinsanaa xilli cashada la maqribka la siinay asoo furaha raadinayo iimaan ninkan waxa ila joogtay 7 askari asku meel fadhina furiya taliya arbaab dha furiya adaa lagu ogaayay shaqada aheede furaani ay weydiinaysa maxaa waa dha may taliya waxa soo ogaaday in aad haysid waay Mansuur waxa dhahay furahan gacan ku dhigiyaal oo maxkamad xukunta meesha ku jiro waajibka qarankana waxa ka soo aaday furahan inaad iska adkaysid ilaahay ku dulo furiya askariya qolkii furiisa u dhibay oo ii soo qaaday 7 askari hortooda wax ku dhaa Mansuur furahan ho habeenkii sida ku wada jiifay subaxii waxa ii hegtay 1 saac iyo 40 markay ahayd Saleymaan Xasan Yare asoo isku dhigan albaabka ii soo jiray Saleymaan wuxuu leeyahay maxaabiisku waa maqan yahay gacan ku dhigay Saleymaan Xasan waa furahaya kala sana oo 4 saac kale leeyahay 4 saac kale leeyahay waa soo baxay qolkii imaaday albaabkii oo furan oo qufulka dhinac kale u dhigan yahay albaabkii oo jamneen darbiyo jamneen imaaday asi waa ila socday askar badan ay la socotay 5 kale askari ay la socotay saldhigii isla wareegay raadkiisa raadinay laba kol bardi dhexdooda meel ooda alaga baxshay roob ee dhiiqay ahayd raadkiisa aragnay Mansuur waxa dhahay ka jawaab 24 saac shaqada qaranka aad joogtay maqribkiina furaha anaa ku siiyay casha siisee ka jawaab Saleymaan kan hadda furahayo oo ku dhigay askarta maqaatiyaal leedahay anoo tiifo furaha qaada asaasi daayuda Saleymaan waxa 2 saac oo shaqada soo galay markuu soo galay arka albaabkii u furan ma joogin xafidii soo jiray habeenkii intaas ay ugu laayo bilaahi Cabduqaadir waxa ku soo xiray Cabduqaadir wardiyo leeyahay ciidanka waxa kale leeyihiin kuwana furahayaal waaye mid oo biyo jooga oo ka shaqeeya kuwana wardiyaal leeyihiin shaqooyinka u kala rakibeen ninkan asoo furii maxaabiistahayo oo maxaabiista oo masquul deynay u maaday waxa dhaay shaqada ayaa ku diray furahayaasha niman ku qoranay
yaa kuu dir shaqadan maya ninkaa masuura caawinayo u dhah adima masuura caawinaya mar dambe kuma arka dhadha furaan wareeji sidii oo ku wareeji habeenkii oo ninka maxabiiska usoo elweynaya habeenkii labadooda waa wada socdeen waa xerada ku way jireen habeen ninka maalin cad ma bixin karo shacabka jannaale ma ku bixi kara ninkan awalba shacabka soo qabtay hay-adda dambi baarista booliiska ee c i d baarihii ay u xil saartay kiiskan ayaa garsoorka la wadaagay natiijada ka soo baxday baaristiisa ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida gaashaanle dhexe axmed cabdalla ayaa maxkamadda ka codsaday in eedeysanaha koowaad mansuur ay ku xukunto qodobadii ay ku soo eedeeyeen halka eedeysanaha labaad cabdulqaadir uu codsaday in maxkamadda ay go-aan ka gaarto nin xukunsano ah oo gacan ku dhiigle ah oo al-shabaaba oo ismaaciil la yidhaahdo mudane guddoomiye ninkaasi horay ayuu degmadani janaale u dhibay oo bambooyin ugu soo tuuray mar horay oo haddana xabsi ka soo fakaday waxaa nasiib daro aad u weyn ah nin la og yahay inuu al-shabaab ka tirsan yahay bambo soo tuuray xabsiga degmada marka ka soo fakaday mar labaad nin wadaad ah oo la jecel yahay oo macallin dugsi ah degmadan janaale ku bireeyey maxkamad la saaray la xukumay haddana la dayaco furi waa nasiib daro aad u weyn mudane guddoomiye mas-uuliyaddaasoo kale waxaa la rabaa cirkii dhulka inaad ka ilaaliso saan u haysid jeebka xataa kuma aamin lehen ani furaas laakiin eedeysanaan muxuu sameynayay meel alle meesha hore uga tegay 8 saac oo shukaansi la aaday degmada janaale shukaansi loo aaday ma dhici kartaa ma dhici karto mudane guddoomiye eedeysanahani si kasaa loo daayay waa nasiib daro aad u weyn waajib gudasho la-aan uu sameeyey xilkiisuu gudan waaye shaqadii booliiska uu ka hayo gudan waaye shaqadii saldhiggan uu ka hayo gudan waaye furihiioo dayacay waa loo soo helay waa lagu wareejiyay dadka hortooda loogu wareejiyay askarta hortooda 7 askariyaan wareysanay oo markhaatiyaal oo saraakiil ku jirto kitaabkaas jaamaca waxay u mareen in eedeysanaha lagu wareejiyo furaha mushaarka muxuu ku qaataaba furahaas hay maxaabiistaas ilaali nin walba shaqo leeyahay albaabkaas maanta haddii uu niman inay ka soo galaan ee maxbuuskaas xoog kula soo fakadaan nimankii waxaa soo xirxiri lahayn albaabka haddii derbigaasi oo kolbaadiyahaasi aniga oo rag ka soo gali lahaa raggaasaa soo xirxiri lahayn xabsigii albaabka laga furay labada dhinac hore gadaal lama marsin derbiga laga bootiyay waana la iska seexday jeega loo seexday ninkii ka bedeli lahaa waardi markuu yimid furaayay ninkii ma xirnaba adib ma aragto yiri ani ma arkin waana si dar mudane guddoomiye tan dayacaad kaliya lama dhihi karo waajib gudasho la-aan dayacaad ku tagrifal awoodeed sameeyay eedeysanahan mudane guddoomiye markii koowaad horta cabduqaadir hadduu ku magacaaban yahay furahaye mas-uuliyadda saa qaadan lahaa laakiin cabduqaadir waxaa la wada caddeeyey markhaatiyaashooda caddeeyeen inuu waardiye weliba waardiye ka yahay halkaas controla sidaas awgeed maadaama annaga mas-uuliyadda aan fiirinayno oo furahaas ninkii haayay habeenkaas ee maxbuuskaas fakiyey aan raadinayno waxaan codsanaa horta inay cabduqaadir maxkamadda ay go-aan ka gaarto maadaama mas-uul uusan ka ahayn furahayaasha ku magacaaban xabsigaasna uusan ku jirin waxaa caddaatay in xabsigaasi furahayaal ay ka yihiin mansuur iyo nin lagu magacaabo saleebaan oo maxkamadda ka hor furay oo waqtigii uu la wareegi lahaa maxbuuska waayeba ismaaciil cabdiraxmaan aan ka rabnaa eedeysanaha waa gacan ku dhiigle al-shabaaba oo macallin dugsi dilay waxaan ka rabnaa ninka la yidhaha mansuur inuu ismaaciil loo keeno ma keeni waayo booskiisas ha galaayo sharcigiisaas oo qabaa ninka aad fakisay booskiisa ha galay adaa galaayo mas-uuliyaddiisa adaa qaadanaya maxkamadda sharafta waxaa ka codsanaya inay ku xukunto ciqaabaha aan kusoo eedeyno maxkamadda waa mahadsantahay qareenka eedeysanayaasha abuukaatis jalambood ayaa muwaakiliintiisa ka baryeelay eedda loo haysto isagoo maxkamadda ka codsaday in xorriyaddooda la siiyo ilyaas hal qof oo inuu maxbuus fakiyey ku caddaysay anaa goobjoog ka ahaa saacadaas meeshaasuu taagnaa tiray xafiiska xeelilaalinta ma keenin meesha waxaa jooga laba furahaaye hadda la sheegay furayaalka waxaa la yidhi waxay ahaayeen laba qofood ayaa furaha ka dhaxeeyey maanta waxaa u xiran muwaakilkayga Ilyaasa u xiran mudane guddoomiye garsooryaal maxkamadda sharafta leh maanta waxaa joognaa janaale waxaan rabnaa cadaalad kow Ilyaas qofka bini aadan waay laba shay buu cudurdaar salaada waajibkuna waa cudurdaar la soo anoom waa nisyaan qofka hadduu hurdu iyo hadduu ilow wax waa ilow karaa maxaad u ilowday maxaad meel oo dhigtay ciqaab ma noqoto qofka waa ilow karaa hadda taliya wuxuu yiri waa markii koowaad oo meesha uu ku iloobay digniin ay ahayd digniin maxay unugtiya uu feeliya marqaati uu dhiway digniintaas kadib Ilyaas furaha ma ka dhume may waxay ahayd in baaras la geliyo intii meesha joogtay
macal taleefoonadooda wax kasto in baaras la geliyo baaras dheer la geliyo lama sameyn waa la soo duubay waxa la yiri Ilyas ayaa meesha furahay habeenkaas la shaqo lahaa waana maxbuus fakaday furaha ma la soo koobiyay Ilyas ma laga soo koobiyay ma la bedeli mal waxyale taliyaha mas'uuliyada saarneed meesha magaalo way qoful meeshan oo yaala hadoo furihii meeshii ka helay dayacan yahay uu arkay inuu baxay ahayd qoful cuseeb oo cid koobiyay si jirin maadaama meesha gacan ku dhig lagu xaran yahay inuu soo qaado yiraahdo waryaa waa dayacday furihii hore in la koobiyeystin aniga ma ogi meeshana maxbuusa ku xiran qoful cuseeb ee waa kan Ilyas Maliri waa may maanta galka dacwadeedka taagan oo Ilyas lagu soo koobay ma ahan mas'uuliyad oo qaadanayo Ilyas ma ahan sababtoo ah lama cadaynin furaha in la koobiyay lama cadaynin in qole kale dad kale meesha jooga inay furahayaan ma la cadaynin cid maanta sheegi karto ama kaamira ku hayso ama leh maxbuuskaas waxa furaayay maanta albaabkaas waxa furaayay Ilyas furaayay leeda male wax cadeen ah oo loo haayo ma jirto mudana gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh waxa ka codsanaya maanta Ilyas eeda lagu soo koobay inay maxkamadda ay ka baryeesho inuu maanta xoriyadiisa ay soo celiso wax cadeen ah oo ku filan maadaama la keenan maxkamadda sharafta leh way mahadsan tahay garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida oo wadatashi ka yeeshay kiiskan ayaa xoriyadiisa dib u siisay Alif Lebool Cabdulqaadir Muxiidiin Xaaji oo lagu waayay eedii loo haystay